wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumiseed oo qayb ka ah wafdii madaxweynaha Soomaaliland ayaa kormeer xaqiiqi raadina ku soo maray deegaanada beeralayda galbeedka gobolka Sanaag gaar ahaan deegaanada Buuqceel ee Dayaxa Goob iyo gudmaha Faafood oo dhamaantood hoos yimaada degmada Ceergabo waxaana wasiirka socdaalkiisaasi ku wehelinayay wasiirkii hore wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo waliba barsaabixinka gobolka Sudwa wasaaradda horumarinta beeraha iyo qaar ka mid ah ardayda kulliyadaha beeraha jaamacadaha gobolka waxaana wasiirku intuu deegaanadaasi u marayay uu kala kulmay soo dhaweyn meeqaam keeda u sareeyay isagoo dhinaca kale ka dhageystay abaahiyaadkii iyo duruufaha ku gadaaman beeralaydaas oo ay ka codsadeen wasiirka inuu ugu daqo agabka beeraha oo ugu horeeyaan agafyada ku bixinay war dawladda agafta qudhax naga caawinto lacag wax naga qaadee agafaan qiimaheeda ku qodan karo yaa hanaga la shaqeyso talabaad siidlaan baa noo sii raacday dukaan baa la keenaa siid qardaas ku jira wuxuu yahay garan mayno mid soo bixi waaya mid xumaada mid noqoda waxaana aqoonba qalabka inta aanu horu codsanay oo cagaf ay ugu badan tahay iyo waa ka wixii kala siidka iyo tayeyntiisu waa xafiiska iyadu ay noo khusaysa aanu beerano adeer anagu qasaaranu ku qabnaa kaba faa'iido waxaan jirin baa dhulkii soo galo dowlad kala qudadii lagu soo balaariyay anaga waxay ku beerahay ku qulmaan anigu waxay siiyaan anigu garan waayay dadku wuxuu soo siisto jeesaa baa soo dhacda basal yar baa loo baxda hoy jeesaa baa qabsatay xagga siirka oo kale oo aanayna lahayn maxjar siirka naga baara oo inta badan khasaara ugu badan naga yimaado waxa kale oo dhibta kale naga haysata carraguurku waa laba mid waa garbooyinka badaadku daafta ka jaraya midna waxa weeye carraguurka dusha nagaga yimaada waxaana dhinacooda baahiyaadka iyo duruufaha ku gadaaman beeralayda deegaanada galbeedka gobolka Sanaag deegaan aad u ballaaran beeralaya oo baahiyahoodu ay badan yihiin oo ay ka mid yihiin in carradii ay guurayso oo erosion uu ku socdo oo u baahan in wax laga qabto waxa kale oo baahiyihiisa ka mid ah wadada aynu soo marnay waad aragtay wadooyinka feeder roadska ee waraabiya ay beeralaydu adeegooda ka doonato ama ay ka geyso wax soo saarkooda ay magaalooyinka ka geyso ama market ka gaadho oo iyaguna aad u xun soo noqdo cagaftan anigu imika goob maanta adiga dartaa baa la igu soo daayay may ogolayn inaan istaago qolada reer goob dadkii cagafta ugu ballan qaaday codka kaga qaaday baan ka furfuraya wasiir markaa waxa ku leeyahay day furo ya insha Allah wixii dawaynu ognay awoodeena wixii aynu qaban karno uun aanu dadaalo waxa ay cabaatin ka hadleen waa dad dhibta ay sheegteen ay sida ay tahay u haysato annagana wasaaradihii isbedelay ee mas'uuliyiintii waaweynayd adigu haddeer muddo yar baad joogtee cabaatinkaasi wax badan baanu u gudbinay wax badanna waaba la nimi halka waa nimi beeraha lagu magacaabayna aanu haddaan reer Sanaagnahay run ahaantii isniri maanta wasiirkaasu wax qabad buuxa ayuu qabanayaa in aad wax u qabatid dadkaas oo ah dad beeraha uun ku dhaqan aan xoolana dhaqan xooluhu ku yar yihiin wallo abaartiba ay qaaday wixii ay haysteen beeraha uun wax kala soo baxaan sida ay sheegeen hadday suuq tahay iyo hadday tahay carraguurka iyo hadday tahay mishiin la'aanta iyo hadday tahay taraktar la'aantan cagabta aanay haysan oo dhulkii adkaaday intuba waa wax jira waxaana ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumiseed oo ku nuuxnuuxsaday siyaasadda waxqabada ee xukuumadda iyo qorshayaasha horumarineed ee wasaaradda uga degsan horumarinta iyo kobcinta beeraha halkan ma soo gaarin laakiin maanta ayaan soo gaaray alxamdulillah rabbil caalamiin laba arimood waan wadiga heshaan horta maanta ee ku bishaaraysta hadda reer goobtiin horta cagaftii waad helaysaan cagaftii oo socoto waan keenayaa waxay nagu soo darayaa shinnidiina waad helaysaan ama siirka waxa la yiraahdo shinnida uun marka shinnidii haana waan nii keenayaa waxaan inaga rabaa markaan ta cagafta nii keeno khudaarta inagoo beeraya inaad galeydii iyo haruurkii iyo tuqunkii iyo nagarab beertaan waayo haddii khudaarta intaad ceergaabo u iibgeysaan aad bariis iyo baasta soo siisataan halkaa un baynu taagnaanaa dhaqaaqi mayno waxaynu rabnaa inaynu ka maaranno bariiskiiyo baastada waxaynu rabnaa cuntada inaad beertaan saytuunka ood kaabashka beertaan ood liin macaanta beertaan ood liin dhanaanka beertaan oo wax kasta oo khudaara intaad beertaan
gorowgii iyo galleydiina aad beertaan oo carruurta aad cuntaan cuntadeena dalka soo go'aysa cuntaan si aad uga baarantaan macaankan iyo qaraarkan iyo dhiigkan iyo xanuunka ay nagu dhacaye cuntada baxdeen cunayna si aan uga baxno leedo daayir telefishinka caalamiga Home Cable TV deegaanka Goobo